Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa laga yaabaa haddii aad qof dhalinyaro ah oo ku nool wadankii aad weydiiso su'aasha ah maxay tahay hadafka ugu weyn aad nolosha ka leedahay maanta, inuu kuu sheego hadafka ugu weyn aan nolosha ka leeyahay maanta waxa weeyaan inaan wadankayga iskaga baxo oo aan wadanka ka tahriibo oo aan iskaga haajiro. Haddii aad weydiiso sababta ay hadafkiisa ugu weyn oo nolosha uu leeyahay maanta ay tahay inuu wadanka ka tahriibo maxay tahay haddaad tiraahdo, wuxuu kugu jawaabayaa waxaan raadinayay shaqo muddo ku siman intaas iyo intaas. Waxaan garaacay albaab walba, waxaan isku xirxiray cid walba oo aan isdhahayay fursad ayay ku sii kartaa oo shaqo ayay kula raadi kartaa, balse albaab walba uga soo xirmay oo iima suuragelin inaan shaqo helo. Sidaa daraaddeed, waxa ugu weyn oo aan rajeynaya maanta waa inaan wadanka iskaga baxo si aan u raadsado fursadaha ay helaan dadka asaagayga ah ee wadamada kale ku nool, si aan u shaqaysto, nafteydana wax u taro, dadkaygana aan wax u taro, oon dalkaygana wax u taro. Soo cajiib maahan haddii dhalinyaradii Soomaaliyeed waxa ugu weyn ay ku haminayaan ay tahay inay wadanka ka tahriibaan. Maxaa sabab u ah? Waxaa sabab u ah shaqo la'aanta xarkaha goosatay ee nambarkeedu aadka u sarreeyo ee dalkeena ka jirta. 75% dhalinyarada Soomaaliyeed waa shaqo la'aan. Ku darso 75% ayay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed dhalinyaradu. 75%na waa shaqo la'aan dhalinyarada tiradoodu sidaa u badan tahay. 25% unbaa shaqaysa dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ku nool. 25kaasna 10% ma haystaan wax la yidhahdo job security, oo macnaheedu yahay inuu xilli kasta ama daqiiqad kasta uu lumin karo shaqadiisa, uu waayi karo, sababtoo ah shaqada uu ka shaqeeya ma aha shaqo la isku halayn karo oo job security ma jiro. Taa macnaheedu marka la isku daro waa 85% dhalinyarada Soomaaliyeed inaysan haysan dhammaantood shaqo ama aysan haysan shaqo la isku halayn karo oo uu ku tashan karo inuu muddada soo socoto uu sii haysan karo shaqadiisa. Haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso maxaa sabab u ah? Waxaa sabab u ah 1. Colaadaha iyo amni darrada dalka ka jira. Soomaaliya muddo 35 sano ka badan waxay ku jirtaa amni darro iyo colaado sokeeye. Dadkii Soomaaliyeed ee maalgashan lahaa wadankoodana waxay lacagtooda ula baxeen dibadda oo waxay ku maalgashteen wadamada deriska ah iyo kuwa kasii shisheeya. Dad gudaha dibadda ka imaanaya oo investment caalamiya sameynayana ma jiro, sababtoo ah wadankuba ma aha wadan amniya oo la isku halayn karo. Taasuna waxay xoojinaysaa in dhalinyaradu ay ahaadaan shaqo la'aan oo ay wadanka iskaga firxadaan. Qodobka labaad waxa weeyaan musuqmaasuqa iyo eexda xarkaha goosatay ee dalkeena ka jirta. Soomaaliya waxaa ka jirta intii yar ee shaqo ah ee ama NGO loo shaqaynayay ama hay'ad dowladeed oo institution dowladeed loo shaqaynayay ama business private loo shaqaynayay way kooban tahay. Awalba iyadoo koobneed haddana waxaa la isku siiyaa qof jeclaysi iyo hebel anaa aqaana iyo yaa ku yaqaana wax la isku siiyaa, la iskuma siiyo capacity-ga qofkaanu ma leeyahay uu shaqadan ku qaban lahaa iyo xirfadeeda ma leeyahay. Taasina waxay niyad jebinaysaa dhalinyaradii wax baratay ee wadanka wax ku baratay ee aqoonta lahayd markay arkaan qof aan aqoon lahayn oo waxba baranin oo shaqooyinkii la siinayo ayagii oo aqoon lahoo jooga, shaqooyinkii ay codsadeenna loogu soo diido liajli inaysan ahaynin ciddii meeshan maamulaysa inaysan ahayn. Waxay niyad jebinaysaa dhalinyaradii waxayna ku kalifaysaa inay wadanka iskaga baxaan. Qodobka saddexaad ee shaqo la'aanta qaybta ka ah waxa weeyaan doorkii dowladnimada oo meesha ka maqan. Doorkii dowladnimada oo meesha ka maqan wuxuu sabab u noqonayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ee isku dayi lahaa inay dalkooda aaminaan, wax barteen, oo shaqo raadiyeen, oo shaqo soo waayeen, oo business private ka raadiyeen, oo dowlad ka raadiyeen, oo NGO ka raadiyeen markay soo waayeen. Kii inta fikiri lahaa isweydiin lahaa sideen dalkayga anigoo jooga nolol u abuuran lahaa oo inta dayn iyo deeq wuxuu doonaa ku keena wax inta soo raadsada business yar oo small business samaysan lahaa ma jiro. Shuruuc iyo regulation ilaalinaya ma jiro. Uma saamaxayaan suuqyada Soomaaliya businessyo yaryara oo hadda soo koraya inay ku soo biiraan suuqyada kuma saamaxayaan. Sababtaasna waxaa ugu wacan in ay abuurmeen dabaqado kala sarreeya oo aad u kala fog. Dabaqad sare oo ganacsigii iyo dhaqaalihii wadanka maamusha iyo dabaqad hoose
oo xariiqtinta faqriga ka hooseysa ayaa abuurmaya, taas oo u sahlaysa dadkii dhaqaalaha lahaa inay dhaqaalo saa'ida sii sameeyaan, kuwii dhaqaalahoodu uu soo kobci lahaana inay hoos sii aadaan. Haddii aad maanta isku daydo inaad Soomaaliya business ka abuurto, small business, way kugu adkaanaysaa inaad waddo. Waana sababta ugu weyn oo aysan dhalinyaradu u abuuri karin business yar oo suuqii Soomaaliya uma suuragelayo inuu business yaryar ah ay soo jaanqaadaan. Waxaa laga rabaa dowladdu inay samayso sharciyo lagu ilaalinayo business yaryarka. Adduunka waa la ilaaliyaa business yaryarka, waa la kobciyaa, canshuur dhaaf loo sameeyaa, waxyaalo badan oo taageero ay dowladdu siisaa si ay kor ugu soo qaado ganacsigaas yarka ah. Maxaa yeelay dowladuhu way ku xisaabtamaan inta small business sanad walba soo kaca ee kor u soo kaca, dowlad walba ay ku xisaabtantaa. Maxaa yeelay waxay ku soo kordhinayaan suuqa, shaqo abuur bay ku soo kordhinayaan, waxay ku soo kordhinayaan new innovation, ku soo kordhinayaan, waxay ku soo kordhinayaan dowladdu xitaa lafteedu ay dakhli iyo ay ka soo galaan ay soo kordhinayaan. Marka Soomaaliya taasi kama jirto oo waa ninkii xoog leh ay xaajo u dhamaatay ayaa suuqyada Soomaaliya taalla. Qodobka afraad aan isleeyahay saameyn ayuu ku leeyahay in dhalinyaradu ay heerkaas shaqo la'aantoodu ay gaarsiisnaato waa xiriir la'aanta ka dhexeeya hay'adaha waxbarashada iyo kuwa suuqyada. Hay'adaha waxbarashada waxaan ka wadaa jaamacadaha iyo iskuulada. Kama dhexeeyo xiriir fiican ayaga iyo suuqyada oo suuqyada kan warqabaan. Dhalinyaradan sanad walba soo qalin jabinaysa ee jaamacadaha ka soo baxaysa waxay inta badan u badan yihiin inaysan lahayn xirfadihii suuqa looga baahnaa. Waana caqabad ay tahay inay xalliyaan hay'adaha waxbarashadu oo ka hor intaynan dejin manaahijtooda inay marka hore suuqa ku sameeyaan qiimeyn sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay wax barayaan ay u baraan wax ay manaaficadsan karaan oo suuqana looga baahan yahay. Waxbarashadu sideeda waxaa loogu talagalay inay ka jawaabto baahi suuqa ka jirta. Haddayna baahi ka jawaabaynin, wax macno ay samaynaysa ma lahan. Waa inay baahida suuqa ka jirta ee ay u baahan yihiin ganacsatadu waa inay ka jawaabtaa waxbarashadu. Dhalinyaraduna waa inay xirfadahaas leeyihiin, xirfadahaasna lagu soo tababaraa oo lasoo baraa. Marka waxaad arkaysaa Soomaaliya inaynan jirin xiriir ka dhexeeya suuqii shaqada iyo hay'adihii waxbarashada, jaamacadihii iyo iskuuladii farsamada gacanta inaynan ka dhexeynin xiriir rasmi ah oo lagu jaangooynayo waxa ay tahay inay jaamacaduhu soo saaraan arday nooc ma ah ayay tahay iyo xirfado nooc ma ah ayay tahay inay ardada baraan sidii suuqa shaqada ay ugu soo kordhiyaan value loo baahan yahay oo wadankana uu uga faa'iideysto, dhalinyaraduna shaqo abuur ay uga helaan. Haddii aan isla fiirino saameynta ay dhalinyarada ku leedahay shaqo la'aantu, waxay ku qasbaysaa hijro qasab ah. Hijrada dhalinyarada waxyaalaha aan ogaano waxaa ka mid ah inayna ahayn inta badan waxay ayagu doortaan. Waa wax ay ku qasbayso, duruufta ay ku qasbayso weeye. Waxyaalaha aan ogaaday inta mawduucan baarayo waxaa ka mid ah dhalinyarada inta badan tahriibtaa ma ahan dhalinyaro hadda waxbarashadii soo dhameeyey kadibna iska tahriibay. Inta badan waxay u badan yihiin inay dhalinyaro marka hore isku daydo inay dalka shaqo ka raadiyaan, inay raadiyaan businessyo ay u shaqeeyaan, ku guuldaraystay, inay raadiyaan in dowladda xitaa shaqo ka raadiyaan, inay NGO-yada shaqo ka raadiyaan balse ku guuldaraystay. Qaarkood ayaa isku daya in haddii ayagu ay waayeen shaqo iyo cid ay u shaqeeyaan in ayagu shaqo abuurtaan oo deyn iyo deeqba waxay soo qaataan, lacag ay soo qaataan, guryo loo soo gado, hooyadiis iyo aabihiis guryo u soo gadaan, guriga deganaayen loo soo gado oo ayagu bacadka seexdaan, dhaqaale geliyo, investment uu geliyo, uu businesski socodweynaya. Sababtoo ah suuqii shaqadu ma ahan suuq soo dhaweynaya ganacsatada yaryar iyo small businesska ma ahan mid soo dhaweynaya. Hore ayaan uga soo hadlay. Taas oo sababaysa dhalinyaradu inay niyad jab ka qaadaan oo ay ka quustaan inay Soomaaliya ay nolol ka samaystaan. Taasaana ku kalifaysa inay badda ay ku daataan oo badaha ku daataan iyo saxaraha si ay nolol midda ay haystaan dhaanta ay u raadiyaan. Qodobka saddexaad waxa weeyaan in dhalinyarada qaar markii ay shaqo waayaan, nolosha ay ku adkaato, inay bilaabaan inay waxyaalo ay isku maaweeliyaan oo nafta ay relief ku siiyaan oo ay ka mid tahay daroogooyinkan, kadibna ay qabitimaan oo ay saameyn taban noloshooda ay ku yeelato. Wayna dhacdaa inta badan dhalinyaradu inay balwadda u bartaan si ay naftooda ay uga mashquuliyaan waaqica qaraar ay ku nool yihiin,
si ay uga mashquuliyaan oo iskugu mashquuliyaan nolol kale oo khiyaali ah inay balwad u barteen, balwadaasna ay saameyn ku yeelatay noloshooda inta ka dhiman ay saameyn ku yeelan doonto. Waxaa kaloo ka dhalan kara dhaqan iyo diin doorsoon. Waxaa laga yaabaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee haddana nagu soo badanaya inay ka faa'iidaystaan qolooyin xagjiriin ah. Xagjirku keliya maahan argagixisada ama Al-Shabaab ama Daacish, sidoo kale waxaa jira kooxo sidaas oo kale ah oo iyaguna ka shaqaysta oo ka faa'iidaysta shaqo la'aanta dhalinyarada haysata inay uga faa'iidaystaan falal guracan oo ka dhaqankeena kasoo horjeeda iyo diinteenna, oo laga yaabo inay siiyaan dhaqaale yar oo kooban kadibna ay ku fushadaan dana khaas ah oo ay bulshadan diinteeda iyo dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda ay ku fidnaynayaan. Waana sababta shaqo la'aantu ay khatar ugu tahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo qarankeena. Si dhalinyarada Soomaaliyeed loo badbaadiyana ay qasab ku tahay dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed inay u istaagaan in dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalkooda la badbaadiyo. Waana sababta ay qasab u tahay dowladda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed inay u istaagaan inay badbaadiyaan mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah ubaxii waddanka oo soo koraya iyo guud ahaan mustaqbalka waddankeena. Maxaa yeelay mustaqbalka waddankeenu wuxuu ku xiran yahay sida dhalinyaradeenu uu mustaqbalkoodu yahay. Haddaba aan isla fiirino markaan xalalka looga bixi karo shaqo la'aanta dhalinyarada. Maxaa xal u noqon kara? Waan isla soo aragnay, waana kasoo sheekeeyey dhibaatooyinka iyo shaqo la'aantu ay dhalinyarada u leedahay iyo sababaha keenay in dhalinyaradu ay shaqo la'aan ahaadaan. Haddaba markaan isla fiirino xalalka aan isleeyahay waa looga bixi karaa shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysata. Kow waxaa ah in dalku helo xasilooni siyaasadeed. Waxaa qasab ah si dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalkooda loo badbaadiyo in intaan in ka badan waddanku ku sii jiri karin xasilooni darro siyaasadeed iyo colaado sokeeye. Waxaa qasab nagu ah qof walba oo Soomaaliyeedna qasab ku ah inuu qayb ka noqdo xalka in waddanku uu helo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed oo la isku halayn karo, si aan u helno dadkeena Soomaaliyeed ee dibadda maalgashanaya inay gudaha maalgashtaan oo dhaqaalahooda gudaha ay soo geliyaan. Maalgashadayaal caalamiyana aan helno si dhallinyaradeenu ay u helaan shaqo abuur rasmi ah oo ay waddankooda ay ku helaan inay ku noolaadaan. Waddankeenuna uu uga faa'iidaysto tamarta iyo awoodda iyo resourcigaas faraha badan oo Ilaahay uuna siiyey oo ay ugu horeyso dhalinyaradu. Si aan uga faa'iidaysano waa in aan helno xasilooni siyaasadeed iyo mid amni oo la isku halayn karo. Qodobka labaad waxa weeyaan in lala dagaalamo musuqmaasuqa iyo eexda iyo ninjeclaysiga. Haddii dhalinyarada Soomaaliyeed ay waayaan markay waxbarashada soo dhammeeyaan meel ay u soo doonan karaan shaqo oo booskii shaqo ee la soo xayeysiiyo ayna u sinayn bulshadu dhammaanteed, gaar ahaan dhalinyaradu ay isu sinayn, ee qof walba CV-giisa iyo shahaadadiisa uusan wax ku raadsan karinin, shaqana uusan ku heli karinin, way adkaanaysaa inaan helno dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddankooda aamina oo ku nagaata. Waxaana sii soconaysa sidaan hadda ay wax u socdaan inay wax u sii socdaan oo ay dhalinyaradu waddanka faaruujiyaan oo ayna iskugu soo haraan dadka waayeelka ah oo kaliya. Labo, in dowladdu ay siyaasad cad ka yeelato sidii dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur loogu samayn lahaa. Dhalinyarada Soomaaliyeed haddii aynan siyaasad cad ka lahayn dowladdu sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa, waa jugjug meeshaadi joog, wax isbedelayana ma jiraan. Waxaa ugu horeeya inay siyaasad cad dowladdu ka yeelato ganacsiyada yararka ah ee soo koraya, inay dowladdu ilaaliso, in dowladdu kabto, in dowladdu mararka qaar ay canshuur dhaaf u samayso si loogu dhiirigeliyo ganacsiyadaas cusub ee yararka ee soo socda inay suuqa soo galaan, shaqo abuurna ay u sameeyaan kuwa ayagu markaa bilaabay iyo dadka dambe oo shaqaalaysiin doonaan oo macno weyn ugu fadhiya qaranka Soomaaliyeed. Dowladduna waxbay ka faa'iidi doontaa hadduu ganacsigaasi guuleysto, balse haddii ganacsi walba oo small ah uu burburo, dowladda Soomaaliya dhaqaalaheedu sidaas u ahaan doonaa, waxayna ku kabnaan doontaa, weligeedna ku tiirsanaan doontaa deeqo iyo tuugsi shisheeye ayaan ku qasbanaan doonaa inaan ku tiirsanaano. Qodobka afraad aan isleeyahay waa meesha ay u dhiman doonto waxa weeyaan in la iswaafajiyo aqoonta iyo xirfadaha la barayo dhalinyarada iyo baahida ka jirta suuqa.
haddii baahi aan ka jirin suuqa dhalinyarada lagu soo hubeeyo oo lasoo baro markay suuqa u imaadaanna ayna ka jawaabi karin baahida suuqa taalla waxbarashadoodii waxay noqonaysaa waxaan iyagu ay yaqaanaan laakiin ma noqon doonto waxay ka faa'iidaystaan bulshadana uga faa'iideeyaan waxaan ku qasbannahay hay'adaha waxbarashadu inay fahmaan in dhalinyarada la baro xirfadaha suuqa looga baahan yahay waa in daraasada lagu sameeyaa ka hor inta aan manaahijta la dejinin sanad walba waa inay jaamacaduhu iyo iskuullada farsamada gacantu ay daraasad ku sameeyaan baahiyaha suuqa ee soo kordhay iyo siday uga jawaabi lahaayeen dhalinyaradan ay ugu dhiirigeli lahaayeen una bari lahaayeen xirfado ay ku shaqaystaan oo ay dalkuna wax uga faa'iido ayaguna shaqo abuur u noqoto muuqaalkan waan rajeynayay inaa wax badan ka faa'iideen intaan ayuu ku egyahay tan intaan muuqaalkan muuqaal lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu